أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين وأمد الصومالية dalka sida joogtaan bal nabada waartaa iyo nolol qiimo leh ayaan ilaahay idinkaga rajaynaya intaa dabadeed halkan waxaan doonayaa in aan uga mahadceliyo kuna hambaliyeeyo matalaadda murugsade oo maanta iskugu soo baxday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada Waxiile iyaga oo difaacaya badbaadinaya hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda isboortigu meel ay lahayd ama isboortiga munishibiyo markaan leeyahay matalaadda waxaan uga jeedaa qof kasta oo meeshaa tegey qof kasta oo ama xildhibaan ama senator ama wasiir ama shacab ah oo meeshaa tegay oo ka qayb qaatay difaaca hantida ummadda Soomaaliyeed haddaba mahadcelinteeda ka hor waxaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed si ay noola fahanto maadaama ay meeshu tahay barihii bulshada oo dad badani ay dhegaysanayaan waxa aan ka hadlayo inay iyana fahmaan taas ayaan horreysiinaya maanta waxaa isu soo baxay wasiirkii matalaadda 4.5ka beesha karanle mudane xasan macallin senatorkii degdheer dhegaweyne xuseen iidow iyo xildhibaanada bariga Afrika noo fadhida Ilhaan Cali Gasar maanta waxaan is leeyahay looma kala harin waxa loo kala harana maba ahayn markii waxay ku soo baxeen isbartiibadii munishibiyo maadaama dadku aysan wada aqoonin waxa iska lahayd kooxdii gobolka banaadir ama kooxdii isboortiga ee Serie A iyo Serie B basketka iyo cagta ee munishibiyo ama gobolka banaadir dhinac waxa iska leh gobolka waxayna kooxdaasi qayb ka tahay wasaaradda isboortiga oo kooxdii Serie A si aad u fahantaan sida horseed Genyo munishibiyo waxool badda madbacadda gaadiidka iyo wixii lamid ah saasoo kale qayb ka ahayd marka munishibiyo kooxaha ugu waaweyn ee Soomaaliyeed ayay ka mid ahayd garoonkii ay iska lahayd ayaa waxaa qaatay oo boobay oo iibsaday maryaantii aad taqiinay ee xasan xaabsade xabaala qotee xilma qabtee xoolo waalan kiibaa qaatay meel walba waa la iibsanaya wuxuuna ka iibiyey niman badeecadda ah kow markaasay wuxuu ka iibiyey isagu baarkinkii qaybtii baarkinkii baabuurta la dhigan jiray ee baska munishibiyo iyo baabuurta meesha waxaa ku yilay macal hoteelkii kooxda macal baarkii iyo maqaayadii kooxda macal muxuu ahaa baarkinadii ay dhigan lahaayeen laacibinta basketka iyo laacibinta cagtuwa tiiyuu iibiyey niman baadicaddahu ka iibiyey waa soo durugsadeen garoonkii barbay ku darsadeen inta kalena eBay u ahayd oo sidii buu iibsanayo inta laga qaylinayay dawad degeysanayseen sidaa darteed maanta waxa ku soo baxay beesha karanle khaasatan murugsade ama karanle meesha ka degan xaafaduna waa xaafadda waa degmada Waxiile oo beesha murugsade loo yaqaano asalkeeda murugsade ibn murugsade taasi waxay ka fursan weyday ilaa wasiirkii oo dowladda ka mid ah inuu soo baxo xasan macallin oo ay ku soo baxdo duntii beeshu ama wixii lagu yaqiinay beesha murugsade dhaqan ay lahayd ama dhuuxii murugsade inuu soo fiixo oo banaanka u soo baxo xasan macallin uu sahay waayo waxaa yimid xildhibaanadii waxaa yimid muxuu ahaa senatorkii looma kala harin dadkiina kuwa kacdoonsan bay ahayd waxaan marka ugu horeysa marka u mahadcelinayaa walaalkay cabdiqani sokorow oo ka mid ahaa dhalinyaradii abaabushay arrinkan uu sidaa noqdo maaragtay howl haddaan la abaabulin ma fusho marka abaabulkana inuu aad ugu fiican yahay waa ogahay maasha allah tabaaraka allah dhalinyaradii isaga iyo dhalinyarada kale ee abaabulku iska lahayd aniga oo ah islow daahir islow socdaal islow abtidoon waxaan leeyahay waxaan qaban lahaa baad qabateen rabbi haydin guuleeyo maasha allah tabaaraka allah waan idin mahad celinaynaa inteennii aan ka soo qayb gelin ee aan u helin awood maadaama aan Yurub joogo idinkaba qaybgeli karin iyo intii aan ogeyn waa idin mahad celinaynaa waxaan leeyahay markaa
waxaad qabateen dhammaantiin waxaad qabateen wax aynu ku midaysanna. haddaba aan hadalkaygu ku horraysiiyo, waxaan maanta waa markii igu horraysay oo si toos ah aan ugu mahad celiyo, aan u ammaano wasiir xasan macallin. waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay in aad sharafkaaga, mas-uuliyaddaada, odaynimadaada, sharafkaaga iyo qiimahaaga iyo qiimaheennaba maanta inaad muujisay waa kaaga mahad celinaya. weliba sidaad u hadashay aad baan raalli uga ahay, oo ah ugu yaraan inaad eedda dhinac kale xataa iskaga weeciso oo aad saarto haddii ilaahay kuu roon yahay mungab inaad meelala aado. anigu marka taasi macno badan iyo maroo dowladaad kama taho, dowladda aad kamid tahay ma eedayn kartid, sharcina maahan, akhlaaq muxuu ahaa nidaamna maaha. marka haddaad xataa xasan ka wareejisay oo aad mid kaloo isaga maaragtay gacantiisi kale haddaad ku wareejisay, dan waa loo qaateeno waa garan karaayo waxaan leeyahay aqoon dowladeedo waxaan ahay isina dowladeedo numrusadaan ah. marka dad nidaam baan kasoo jeedaa. marka waad ku mahadsan tahay, yacni maada inkirin in ay tahay wax aan loo dul qaadan karin waxa dowladdani meesha ka samaynayso, adiga oo akhlaaqaynaya oo hab sida wasiir adiga oo xukuumadda kuma dhayli kartid, mana caayi kartid, oo waa sharciba. marka isna aadan haddana inkirina meesha ku wiciso waa kaaga mahad celinaya. waa si fiican bay ahayd walaal, aad baan kugu mahad celinayaa. waxaan kaa rabaa waa taloo kale ogow xasan macallinow, waxii fiican oo ku midaysana, wixii fiican ee dowladnimada Soomaaliyeed, qarannimada Soomaaliyeed, muxuu ahaa sharafta beesha aan ka soo jeedno oo ummadda Soomaaliyeed ay u hayso wax weyn u hayso, dad macno leh oo qiimo leh oo sharfan oo xaaraanta necab oo xumaanta aan ka qayb qaadan oo naloo haysto, dad aan ka qayb qaadan oo naloo haysto wixii ku saabsaneed sidanoo kale ugu soo baxdo. waa ku midaysannahay, waa kugu garab taaganahay, waa kaaga mahad celinayaa, waad igu matashaa. maasha allah tabaaraka aad baan kugu mahad celinaya. dhegdheer waxaan leeyahay iyo xildhibaanada meesha yimi aan si gaara horta ugala baxo ilhaan cali gasar. waxaad ku bilowday ilhaanay adeer, waxaad bilowgiiba inoo muujisay qofka aad tahay, iyo cali gasar baad inoo muujisay adeer. ilaahay ku guuleeyo. waxaan rabaa markaa senator dhegdheer iyo magaranaysaa iyo xildhibaanadii kale, waxaad soo baxdeen maalin loo baahnaa, waxaad gudateen waajibkiinnii, waxaad garateen inayihiinna, waxaad garateen soomaalinimadiinna, waxaad garateen murusadanimadiinna iyo karalanimadiinna iyo shaksiyaddiinna wax waajibka ku ah. kow laba, waxaad nagu matasheen oo aadan nagu sharaf dilina waxaynu idinku lahayn ama aad nagu matalayseen. waynu idiin mahad celinaynaa. waxaana idin leeyahay guulaysta, aniga oo ku hadlaya magaca beesha Karanle. waxaan leeyahay waad mahadsantiin, wixii aan u baahnayn baad qabateen. intaa ugu gudbo, waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed si ay noo fahmi karaan haddana inaan meesha u yar noqdo. maxaa dhacay? maxaan ka mahad celinayaa? maxaa meesha ka dhacay si ay noola fahmaan? galabta markii 5tii galabnimo markii ay ahayd ka hor, maalmahanba arrintu way socotay. marka adinku aad aragteen waxay ahayd 5tii galabnimo, maalinta oo khamiis ah waxay dhacay baad arkayseen. maalmahanba talada way socotay. beesha murusade ayaa tashatay ilaa iyo heer wasiir, ilaa heer xildhibaan, ilaa heer muxuu ahaa askari, ilaa heer sarkaal. dadka degmada Wardhiili degan ee beesha murusada deegaankan lagu yaqaano na kacdoon bay ahaayeenoo waxay diidanayeen hantidan ummadda Soomaalida ee la boobayo. meeshu markaad dhinac u fiiriso waxa weeye waa dan guud, maaha guryo dad iska leeyihiin, maaha, waa dan guud. dantii guud bay doonayeen inay badbaadiyaan. hadda ka horna waa aniga dhihi jiray, murusadow goorta laydiin soo dhacayo waa markii aad difaaci weydeen dhulka maguuraanka ah ee hantida ummadda Soomaaliyeed ah. ismartiibadani ma ahan guri qofeed. hadda ka hor waxay ka difaaceen nin aniga tolna
sidaa darteed waxay soo kaxaysteen ciidan ilaa 2,000 oo askari ah waxay soo kaxaysteen shacabkoodii waxaana soo dhaqaaqay ciidamadoodii dabeetana maxay keeneen ciidamada 2,000 ay ahaayeen ilaahay ka cabsado astaghfirullah oray bal sheegayaan been sheeg ciidamada 2,000 ayay meesha ku hareereeyeen waxayna xirteen meesha la yiraahdo ilaa iyo wadada aada villa Soomaaliya waa meeshii loo geli jiray farmaajo barta la yiraahdo ee Florence ilaa wadada Kooshin Fagax ilaa wadada hadii la ku reey Maxamed Xarbi iyo duleedkiisa ilaa station booliiskii ilaa iyo afka siinay iska xireen waxa soo galay markaas shacabkuna iyagoo qoryana sita dhagaxna sita ay waxay ka yimaadeen dhinaca masaajidka Xarriyaal xabaalaha socdaal abtidoon Sokorow Maxamed Sheekh Cusmaan iyo meesha ay ku aasayeen ay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen wardhigli qofkii xamri qofkii yaqaana xamar ay tilmaanta fahmi kara waxay ka yimaadeen koonfur dhinaca koonfur ay ka yimaadeen way soo galeen rasaasa xogaa dhacday ciidana meesha waardiyeynayay oo mooryaanto ay iska leedahay xasan macallina amray si toos ah la soo xabadeeyay futaday jeediyeen meelay ka baxaan ay waayeen qaarna waa la qabtay qaarna waa la sii daayay laba wiil oo mursada ah oo ku jirtay in qoryaha iska dhigeen qoryaha laga qaaday iyagoo inay dagaalamaan ma doonayn oo arrintan ay ku faraxsanaayeen sida la ii sheegay taliye ku-xigeenka iyo taliyaha degmada station booliiska horniilaya dabcan inuu rasaasido hoosaa loogu dhigay futaday jeediyeen labadaba naclaha ku dhacee agtay wax ka dayeen halkaa markay intaasi marayso lagu kala adkaa kadibna shacabkii ayaa waxay bilaabeen inay burburiyaan baarkinkii iyo agagaarihiisii iyo muxuu ahaa way dhiseen laamiyari keliya maha waxay dhiseen oo ay shamiindada meesha taalla iyo alwaaxa yaalla iyo birta taalla iyo yukaan maajir gidaarana waa la dhisay shacabkii ayaa waxay u dhaqaaqeen inay burburiyaan dhismayaashii la dhisayey iyo laamiyariyaal ku wareegsanaa ayay diginta ka dhigeen kadibna maxay sameeyeen sibirkii meeshii ilay ama shamiindada meeshii ilay iyo birihii iyo looxantii qaateen hal laguma reebin hal waxa soo galay marka kadibna maxaa yimi baad muxuu ahaa nidaam markaan leeyahay waa senatarada iyo xildhibaanada senatarka iyo xildhibaanada iyo wasiirka baabuur qaada dhagaxa iyo qurunka meesha lagu jajabiyey iyo qashinka si loo nadiifiyo meesha oo aysan environmentiga aysan xataa u xumayn waxay kaloo keensadeen baalayaal ama muxuu ahaa katarabiilayaal waa markay jajabiyeen baabuurtiyaa lagu guray iska rogayaasha ah ayaa wixii qurunka ee meesha ay ka jabiyeen lagu guray markaasay iska fogeeyeen weliba wallahi inay igu bannaan yihiin idinku maalay waxaan leeyahay marka oo aan intaa markaan fahansiiyo aan dadka Soomaaliyeed fahansiiyay waxaan u soo noqonayaa ragga aan mahad celinay wareey waad mahadsantiin horta dhigdheer anigu weligay 4 jeer aan wax u diray ilaahay baan runtii ku jeclaa 4 jeerna waa qabtay 4 arrimood oo 4 hawlood oo 4 aad u muhiim ah oo aan u diray 4 taba uu qabtay dadku aad bay u dhaliilayaan laakiin nin dhaama anigu ma hayo ma arag ma maqal ilaahay baan runtii jeclaa ninkii senator laga dhigay isaga ka fiicanna anigu meel umada kuma ogayo malay warhel ilaahay baan runtii jeclaa taas waa qodobkayga labaad xasan macallin waxa leeyahay xasan macallinow war inaadeer horta kow sharafkeena sidaan aad u dhowrtaa sidaan ayaad ku dhowrtaa sida kale maaha sidaan aad ku dhowrtaa waa kugu raacsanahay waan kugu amaanayaa waana kaaga mahad celinayaa eena waa qodob ilhaan waaban sheegayo waad ku bilowdayo ilhaan ay bilowgaagii baanu u bognay dabayaqadaaduna way ka sii fiicnaan doontaa insha allah adeer cadowgaaga allaha jabiyo intaa markaa halkaa kaga gudbo war inta kale war nimanka la yidhaahdo ninka la yidhahdo xuseen iidow iyo ninka la yidhaahdo ma garanaysa iyo dhega weyne iyo faa'isa iyadana aad baan ugu mahad celinaya xataa haddaysan joogin waxaan leeyahay niman yahow haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaahe dhaqashiyo marbay kaa yihiin dherego xaaraane dhedegowgu waa ceeb
inaad dhamaksataa meelee dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhalilaa nin dhirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliyee dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid niman yahow dhaliilaha idinku socdo waad aragtaan oo beesha aad tolka tihiine aad matashaane karan leh sida idin dhalilayaan ilmaad reer waa aragtaan nacayb nooguma kiin jiro tol baynu nahay matalaadeenii baa tihiin war magaceennii baad matashaan sidaad maalintaas u taalaan ayaana u naalaa waxaan idinku diidno ama idinku cayno ama idinku maagnahay waxa weeye nafteenna waxaynan u quurin marka aad samaysaan waxaa dhacaysa in annaga jirku la xanuuno oo jirkeennii baa tihiinoo kuwii matalayay baa tihiin sharafkeenna dowladnimadeenna quruxdeenna qaabkeenna cadaaladeenna iyo dadnimadeenna idinkaa lagu matalay maalinta aad wax quman samaysaanna dee dad waxaan nahay nadiif ah dadnimo leh dadka soomaalida sharaf ku dhex leh maalintaad wax xun samaysaan ama waxa xun wax ka qaban weysaanna de waxaan nahay dad liidan hooseeya oo anyaanyuf ah naftan uma quurno inaynu anyaanyuf ahaano sidaa darteed war waxaad tihiin annagaad nagu matashaan sidaa darteed waxaan idin leeyahay waral ma adeerayaalow na qurxiya oo waxaad yeeshaan hana qaawina hana xumaynina dadnimada hanoo diidina haddaad dadnimo fiican mari weysaan waxaad naledihiin dad miihidin dadkuna dad miihidin dadku waa markhaati marka waynu idin jecelahay haddaad wax fiican qabataan oo noo qalmee war wax fiican qabta noo hiiliya waxaan idinka doonayan weligay maalin walba waxaa lagu leeyahay war nimanka maad wax naga tirahay war daahirow nimanka islaamaad wax naga tirahay wallaahi iyo billaahi sidaan idinkaga gaabsado ilaahay hortii anigoo waxay dareemaya ilaahayba og markaasaan waxaa leedahaa ceebtiibaad sii ballaarisaa ood kusii dhex dhufataa ood ummadda maqashiisaa ilaan waa ceebtaydii maanta waxaad qabateen baan idinka doonay waxaad moodaa maadhood kelmaddii aan idinku iri oo yaad u sheegaysaan aad leedihiin wax ilaashada haddaydan ciidan keenin hadday nile marka wiilasha lagu dilay inaa cigal la lugay markii meesha lagu dilay war wiilasha yaryaray markay dhagaxa tuurayeene ay la dhacayeen dhashiikaha ee warafka tuurayeen yahuudduna ay ka soo degaysay hargeysa ilma adeerayaalow ma waxaa idinka qabatay inaad tirahdaan difaacda dhulkiina is abaabula mase waxay ahayd inaad idinku abaabushaan oo xataa istaafkiinu inuu maalintaa dagaalamo bal wax kaleba okaadi istaafka faa'isa istaafka xuseen iidow istaafka haddii loo dhego weyne war haddii istaafyada keliya maalinta aad wiilasha ku garabistaan war wiilashii aan arkaya geesinimadooda dhagaxda intay qaateen la dhacayey muxuu ahaa raggii beeka imka la dhacayey ilaahay baan idinku dhaarsheeyey bal wiilkaasoo qori daba jeexa gacanta ku dhigay maxaad oranahay rabbi baan kugu dhaarsheeyey waa wiil mursada wiilku wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi 5 baa ku filayd iyagoo 20 ah diinu rabbi ciise war wiilashu waa wiilasha mursada waxaad yeeshaan dadka ay ishayaan waa aqaanaa war dadkii soo dhaqi jiray baan ka soo jeedaa war ina islaw socdaal islaw abtidoon islaw geedi islaw jamcaale islaw cumar islaw axmed baana war dadka waa aqaanaa sidii u kala wajiya adag yihiin iyo sidii u kala dhabar jilacsan yihiin war wiilashii daguuro hilibi habar idille habar ceeno abak wixii meeshaa joogay war waan arkay wiilashii abakar meeshaa taagnaa wiilashii hilibi iyo wiilashii daguuro meeshaa taagnaa war wiilashii cabdalle meeshaa taagnaa waan arkay dhagaxa tuurayay war hadday wiilashaasi gacanta ku dhigi lahaayeen haddaad samayn lahaydeen keliya istaafkiina hadduu u dagaalami lahaa war rabbul ciisa inaan wardhiigley iyo holwadaag iyo hodon iyo waaberi iyo xamar jajab iyo daynile diino war rabbul ciisa inuusan mooriyaan iyo eygiisu wallahi dhisadii soo galeen haddaba hadalkaygu waxaan kusoo gabagabaynaya war waxaad samaysaan tijaabaad ku jirtaan isma ogdiin kelmaddan weeye kelmaddan meesha uga dan lahaa nuxurkayga waana taan kusoo gabangabaynay murusadow tijaabaad ku jirtaan waydaan ogeynine
xasan wuxuu doonayaa inuu dalkan iyo dadkan qasbo yuhuud imanaysa dan kama lahanoo waad arkayseenoo ma yuhuudaan iska dhicinaa mase isagaan iska dhicinaa hadda adika arkaya xasan haddaan beesha mursadanahay warba isagaan iska dhicinaa oo la dilaya mise etoobiya waxaan iska dhicinaa yuhuud oo dalkii soo gashay oo aad arkaysaan iyo qoladii maqduubiyiintii ma maqduubiyiin almaqduubiyiin iyo yuhuudiyo iyadoona kasii xun baanu iska dhicinaa mase amaya ahlulmaqduub qoladaa hargeysa joogta iyo muxuu ahaa yuhuudda ay wadato miyaan iska dhicinaa mise waxaasanaan iska dhicinaa ilaa waa kan xabadda lagu ridayey ninkana yuhuud iyo dan kama lahay iyo dalkana ninkana wuxuu doonayaa dalka inuu xoog ku haysto inuu sidaa ku haysto doonaya cidda keliya ee uu ka baqayo 15 mayna oo beesha mursado igu wallaahi oo igu billaahi ah oo igu tallaahi ahna idin dhaaranaya iga yeelo oo dhaarta igu qaata kii aan aaminano oo dhaarta igu qaado nin wax weyn og baan ahay war nin meel dheer wax ka arki karaan ahay igu qaado igu ogow tijaabaad ku jirtaan reerka keliya uu ka baqayo ee muqdisho uu is leeyahay duulaan bay kaaga qaadayaan war rabbul ciza wa mursada waa howlwadaag iyo barmudo waa barmudo howlwadaag ku dhex taala waa haddii lay ku roy waa hodan waa haddii lay ku royahay daynile mursadoo waa idinka oo keliya ciduu ka baqaya oo wardhigley iyo hodan iyo howlwadaag iyo daynile wuxuu maaha inuu guriya boob maaha keliya dhul boob keliya maaha idinka wuu iska kiin tijaabinaya wuu iska kiin eegaya waxaanoo dhan waa tijaabo sidaa darteed anigu waxaan idin dhihi lahaa maanta is abaabula war hubkiina war mareexaanow hubkii aad beri dhoweyd muxuu ahaa qabsatay war si aad nagu soo gaarsiin lahayd isku day waana inaad meesha u marta dee anigu si qof ahoo hoos ahana idinkuguma sheegi karo oo telefoonadiina ila maahan hal telefoon aan iskuga iman karno inaan kor u sheego marka uu ku qasbana waana waajib mursadow istaaga is abaabula wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi markaan idiin dharanaya xasan dalkan hadduu sii joogo in aydan jiraynina ummadda soomaaliyed aanay jirin dalna la heli maayo dadna la hayn maayo dowladnimana jiri mayso istaaga xildhibaanada iyo senatarka iyo wasiirka iyo saad u dhintihiin waa in aad hadda qabanqaabisaan sidii soomaali loogu badbaadin lahaa naftiina aad ku badbaadin lahaydeen hubkiinu iyo is-abaabulkiinu waxaana waajibkaasi uu saaran yahay xildhibaanada senatarka wasiirka iyo cid inta lamida iyo inta garanaysa qaata waajibaadkiina waxaana leeyahay ilaahay meelaad joogtaan ba ha idinku guuleeyo cadowgiina ha jabeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu